فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحديث 33 حديث كي صدن يسدحاد عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس إلهي هكراضي النقضاء وحال وري أن الرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لو يعطى الناس dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda laa daca ama la daca rijaalun ragaa waxay ku andacoon lahaayeen amase ay sheegan lahaayeen amwaala qowmin qoomumaalkooda iyo wa dimaa'ahum dhiigagooda ayay sheegan lahaayeen ama rag kama tegi lahayn qoom dhiigoodii maalkooda. laakiin albayinatu laakiin markhaatigu cala almuddaci ninka muddaciga dushiisa ayay ahaatoo wax sheeganaya. walyamiinu dhaartana calaa man ankara qofka markaa inkiraya. xadiidun xasan rawaahu lbayhaqiyu ayaa xadiidkaa wariyey iyo wakayruhu haakada sida ayay ku wariyeen xasannimada wa bacduhu fi saxiixayni qayb ka midana saxiixaynka ayuu markaa ahaaday. xadiisku wuxuu tilmaamayaa dadka in lagu kala bixinayo dhaar iyo markhaati. labadaa haddaysan jiri lahayn dad ayaa waxay xoolo ka dhigan lahaayeen ama ay shaqo ka dhigan lahaayeen dad xoolahooda iyo markaa dhiigooda. qof walbaa waxaa laga rabaa hadduu wax sheeganayo inaan layska siinin, laakiin markhaati ayaa laga dalbana oo markaa laga rabaa. qofka wax inkiraya dhaar ayaa korkiisa markaa ahaatay. sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa qofka markau dhaaranayo iyo qofkuu markhaati beenaalo fura labadaba waciid adag markaa ku soo arooray. ilaahay wuxuu yidhi fajtanibuu rijza min alawthaani wajtanibuu qowla azuur. markhaati beenaalahana ka dhaqaaqa, sanamadana markaa ka dhaqaaqa. dhaartaa kuu soo hartay rasuulku wuxuu dhahay qof allaala qofkii dhaar ku dhaarta oo saartaasoo dhaar sabri ah oo ku goosanaya maal muslim ah uuna ku been sheegayo, ilaahay wuu la kulmaa asagoo qadbaan ah, asagoo markaa u xanaaqsan ayuu ilaahay u kulmaa subxaana wa tacaala. sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa dadka xanti iyo xoolo aysan lahayn inaysan markaa ku dhaaranin. wayaxlifuuna billaahi maa qaaluu, waxay ku dhaaranayaan ilaahay waxaysan markaa dhihin buu ilaahay aayad kale ku yidhi. haddaba qofka mar allaala marka la yidhi dhaaraa lagaa rabaa waa cabsana. ileen dhaartu aad iyo aad ayay u adag tahay. ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila. nebigaa maalin qudbay markaasuu yidhi xoolo islaam leeyahay qaldheel iyo dhaar ha ku qaadanin iyo been. ka waran buu yidhi rasuulkii ilaahayow xoolaha walaalkii leeya oo aan ka qaadanayo dulmiga hadday yihiin wax yar, shay yasiir ah. rasuulku wuxuu yidhi wain kaana qadiiban min araak, laan cadigiisaba ha ahaada, caday laanteeda. markaasuu ilaa soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliila. alxadiid 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحو يري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مغلي صلى الله عليه وسلم أو يقول بها من رأى منكم قفكي أركو إذنك مدأه منكر قفكي أركا وشي دين تلو إنكرا شرعه أيدي دا منكر ليرهذا فليغيره أكو غيره أو هكو دوري بيده كعنتيسة intuu munkarkaa gacanta ula taga ha ku baabi'iyo. fain lam yastatic, hadduu kari waayo fa bilisaanihi carabkiisa. fain lam yastatic, hadduu carabka awoodi waayo inuu kala hadlana fa biqalbihi, qalbigiisa ha ku zuuliyo. wadaalika qalbiga oo laga naco ayaa adcafu liimaani, iimaanka midka ugu daciifsan ah. rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey. iimaanka midka ugu daciifan muraadka waxaa loola jeedaa ana alcaajiza idaa ankara biqalbihi yakuunu iimaanahu adcafa min iimaani gayrihi. qofku markuu kari waayo wax walba ilaa inuu qalbiga ka naco maahane iimaankiisu waa ka daciifsanya iimaanyada kale. waayo muraadka waa adna aliimaan, waa iimaanka midka ugu yar waaye. liannahu wadalika ana alcamal waa samarka iimaanka waayo qofka iimaankiisa intuu la eg yahay oo camalkiisa la eg yahay.
marka qof allaala qofkii munkar arka, qofkii xumaan arka, qofkii wax diintu ay diiday arka, gacanta ha kula taga buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. luqmaan canugiisa wuxuu ku yidhi yaa bunaya aqimi asalaa wa'mur bilmacruuf wanha cani ilmunkar wasbir calaa maa asaabaka. wiilkeeyow salaada hagaaji, sakadana macruufkana ummadda amar, munkarkana ka reeb, kuna sabir wixii ku asiiba ee markaa kaa soo gaara. haddaad kari weysa, macnaha haddaad awood u yeelan weysa inaad gacanta iyo afkaba markaa ula tagto, waxaad ka nacdaa qalbiga. saasaa markaa loola jeedaa. culimmadu waxay dhaheen man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihim, oo marada iyo madaxdaa loola jeedaa. ileen taaqa iyo awood ayay u leeyihiin inay gacanta ku suuliyaan. fain lam yastadic fa bilisaanihi. culimada waaye ayay dhaheen inay ka caddeeyaan carabka. fain lam yastadic fa biqalbihi, waa dadweynaha intooda kale. wadalika min adcafi aliimaan. munkarkiiaan dhex fadhiisanaa maa qalbiga oo laga naco, waxaa loola jeedaa ka dhex tag. waidaa maruu bilagwi maruu kiraama. dadka sharafta lehee cibaaduraxmaanka markay xumaan soo agmarayaan ayagoo sharfan ayay maraan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. waidaa ra'ayta aladiina yaquuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yaquuduu fii xadiidin gayri. hadduu shaydaanku halmaansiiyo adoo dhisdhex fadhiya xumaantii aad aragto, falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aldaalimiin. xusuusasho gadaasheed qoom daalimiina ha la fadhiisanin ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. marka munkarka waa wax walba oo diinta lagu inkiro, waa waxay markaa diintu diiday. qofkii arka falyugayirhu biyadihi. nebiga ayaa xajinayay, waxaa gadaashiisa fadhiyay fadli ibni cabaas wiilka la yidhaahdo. gaadiid uu saarnaa nebiga. xajatulwadaac ayaa naag u timid. naagtii su-aal ayay nebigu weydiinaysay. fadli wuxuu guda galay inuu naagta fiirinayo, naagtuna waxay guda gashay inay fadli dayayso. nebiga wejiga fadli ayuu qabtay, markaasaa wuxuu u leexiyey ilaa shiqhi alaaqar, dhinaca kale. waxay tilmaamaysaa munkarka gacanta in markaa lagu suuliyo. qof kasta meeshii awood uu ku leeyahay, gurigaaga oo kale wixii markaa xumaana oo yaala gacantaad ula tegi kartaa, iyo meel walboo adiga aad markaa awood ku leedahay. haddii dhib aad ka cabsanayso xumaanta inaad gacanta kula baabi'iso, hadday ku suurageli karto, markaa waa inaad afka kala hadashaa, aad u sheegtay ilan taasaa korkaaga ah. tiiyaad kari weyse buu dhahay, waa inaad qalbiga ka nacdaa. riwaayad kale ayaa ku dartay qalbiga oo laga naca wax ka dambeeyo iimaana markaa ma jiro. ilan qofka xumaantii ayuu markaa dhex galay. alxadiid alkhamis wahalaahuuna. xadiidkii 35 can abi hurayrata radia allahu canhu qaal. abi hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam, laa taxaasaduu, ha isxasdina, walaa tanaajashuu, ha isfallisina, walaa tabaaqaduu, ha isku caroonina, walaa tadaabaruu, ha isku dibjeedinina, walaa yabic, yuusan gedin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin, qaarkiin qaarka kale beeciisa dushiisa yuu ka gadanin, ee wakunuu ahaada cibaadallaahi, yaa cibaadallah, addoommada ilaahayow ikhwaanan walaala noqda buu dhahay nebiga. waayo almuslimu akhulmuslim, muslimka muslimka kale waa walaalkiis. laa yadlimuhu, ma dulmiyo, walaa yakhduluhu, ma dhagro, walaa yakdibuhu, ma beeniyo ama ma u been sheega, walaa yaxqiruhu, mana xaqiro oo ma liido. attaqwa haahuna, taqwadana meeshan waaye buu dhahay nebiga. wayushiiru ilaa sadrihi, xabadkiisa ayuu tilmaamay 3 maraatin, 3 mar. bixasbi imri'in, shaksi waxaa ugu filan min ashari, shar xaggeeda an yaxqira, inuu xaqiro akhaahu lmuslima, walaalkiis muslima inuu xaqiro uu liido ayaa shar ugu filan. qofka muslimkaa shar oo dhan hadduu ka badbaado, laakiin walaalkiis muslima uu xaqiro uu liido, intaasaa markaa shar ugu filan buu dhahay nebiga. kullu lmuslimi muslim dhammaantiis cala almuslimi, muslimka kale korkiisa xaraamun, xaraam ayuu ka yahay, damuhu, dhiiggiisa, wamaaluhu, maalkiisa, iyo wa cirduhu, sharafkiisaba. intaasoo dhan ayay ka tahay buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala nebigiisa. muslimka kale korkiisa wuxuu ka yahay xaraam, dhiiggiisa inuu daadiyo, maalkiisa inuu qaato, iyo sharaftiisa inuu markaa wax u dhimo. abi hurayra xadiiska warinaya.
sidaa darteed wuxuu xadiiskuna tusayaa dhaqanka muslimiinta dhexdooda loogu talagalay iyo sida midkoodkan kale la raba inuu ugula mucaamaloodo. muslimiintu waa walaala, hadday iska hor yimaadaanna dhibaato fara badan ayaa ka imaanaya. maca daalika ayaa khilaafka iyo dhibaatada iyo xarbada waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibka muslimiinta u keena. inay murmaan ama ay doodaan ayaa aayado kale loogu diiday. rasuulku wuxuu dhahay laa taxaasaduu, ha isxasdina. xasnimada waxaa loola jeedaa waa tamani, qofka uu tamaniyo qofkan kale inuu mataqaanaa nimcada uu haysta ay ka soo wareegto oo ay isagu markaa usoo wareegto. xadiid ayuu ku dhahay nebiga, iyaakum walxasad, xasidnimadan idinkala digayaa, waayo xasidnimadu waxay cuntaa qofka xasanaadka uu samaysto sida uu qoryaha dabka u cuno oo kale buu dhahay nebiga ama cooska. marka sidaa darteed ha isxasdina. xasidnimadu waa arrin aad iyo aad u xun oo qofka qalbigiisa gasha, dhibaato aad iyo aad u weyn waayo. qofka muslimka markuu khayr helana waa naxaysaa, markuu shar helana waa ku farxaysaa. waa xaasidnimo. sidaa darteed baa xaasidka ilaahay laga magan galaa, wa min shari xaasidin idaa xasada, mar allaale markuu xasdaayo xaasidnimada. sidaa darteed buu ilaahay yidhi, am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi. dadka maad ku xasdaysaan wuxuu ilaahay siiyo fadligiisa ah, oo owlaad ah, oo cilmi ah, oo maal ah, oo hanti ah, oo adduun ah. taamaad dadka ku xasdaysiin buu dhahay ilaahay. am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikmata wa aataynaahu mulkan cadiiman. mulki cadiima ayaan siinay ibraahim. ilaahay weydiista fadligiisa. laa taxaasaduu, ha isxasdina buu dhahay ila subxaana wa tacaala. walaa tanaajashuu, ha isfallisina. najashka waxaa loola jeedaa in qofka kale waxa uu gadayo uu ku siyaadiyo tamanta iyo lacagta. naji ayaa la yidhaahdaa, ama fallisaad waxay ka timaadaa dadka dilaalada inta badan. marka suuqa la joogaa neef la naadina, 40 baa loo joogaa, yaa ku daraya. midaa dhahaya anaa 50 ka dhigay, 50aa loo joogaa. midkaa 50ka ka dhigaya waa beentiis oo inuu gata ma rabo. waxaa la rabaa qof kale oo walaalkiis in lagu dhagro taman badan markaa laga qaado. inta badan dilaalada iyo dadka xoolaha leh waa isla jiraan, dadkay wax ku siyaadiyaan keliya waa mamnuuc. walaa tanaajashuu, ha isfallisina buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisa. najshiga iyo fallisaada ayaduna waa mamnuuc. sidaa darteed waa arrin aan loo baahnayn. maca daalika waxaa la rabaa qofka muslimka ah mar allaala marka dilaalnimadu ay tahay shay macnaha fallisaada ay tahay yaa ku daraya keliya, oo qofka beeca markaa loo wada jooga dhibaato ma ku sugna. waa la dhihi karaa intaasaa loo jooga yaa ku darsanaya. laakiin qofka wax ku daraya iyo qofka xoolaha naadinaya waa inuusan xiriir markaa ka dhexaynin. qofkan hadduu rabo daacadnimo inuu u gato oo intaasaan ku dara uu dhaho dhibaato markaa ma laha. walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu, ha isku caroonina ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. tabaaqadka waxaa loola jeedaa caro dadka muslimiinta ay markaa isku qaadaan. waa shay aad iyo aad markaa u xun. muslimiinta dhibaato ayay u tahay. weliba xadiid kale ayaa tilmaamaya qofka kale walaalkii inuu ka aamusnaado, ka xanaaqsanaado 3 maalmood wax ka badan inay mamnuuc tahay. maalin walbo ithnayna ama maalin kastoo khamiisa acmaalaha ilaahayaa loo dhiibaa oo loo gudbiyaa. malaa'igtuu leeyahay u dembi dhaafa addoon walba oo aan shirki samaynin. dembiga aad ka soo qorteen u tirtira addoommadayda. ilaa 2 qofood oo shaxno iyo colaad iyo iska caroosho ay ka dhexaysa maahane. unduruu haadayni, labadan u kaadiya oo suga ilaa ay ka heshiinayaan ayuu dhahaa ilaahay subxaana wa tacaala. 3 maalmood wax ka badan waa mamnuuc. walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu, ha isku dibjeedinina. tadaaburka waa hijro. walaalkaa aad ka hijroota hadduu arka inuu dhabarka u jeediyo ama dhabarka u jeediyo, taasoo la diidayaa. laa yuxilu limuslim an yahjura aqaahu fawqa 3 ayaamin, 3 ayaam. 3 maalmood wax ka badan inuu ka aamusnaadaa mamnuuca. ayagoo kulmaaya midkaana uu jeesto kana uu jeesto buu dhahay nebiga. wa khayruhumaa, labadooda waxaa u khayr badan alladii yabda'u bisalaam, midka salaanta bilaaba ayaa markaa u khayr badan. sidaa darteed ha isku dibjeedinina. walaa tusacir khadaka linnaasi, dhabankaaga dadka ha aadinin buu dhahay ilaahay asagoo luqmaan nooga waramaya sida uu wiilkiisa u waaniyey. walaa tadaabaruu walaa yabic, yuusan gedin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin, qaarkiin kale beyciisa dushiisa yuu ka gedin. labadaba way ku timaadaa. qofka wax gadanayana waa loola jeedaa, qofka wax gadayna waa dhici kartaa.
matalan dukaankaad aaday waxaad rabtaa inaad surwaal gadato, surwaalkii aad gorgorsanaysaad leedahay meeqaad iga siinaysaa, 50 riyaal ayaa lagu dhahay. nin kale ayaa dhahaya anaa 60kaa siinaya. waa mamnuuc, liannahu labadaa way heshiiyeen. maca daalika beeca walaalkaa ha ka korgedin. ninka wax gadanayo waxay uga timaadaan laba qofood oo wax isla gadanaysa is-ag fadhiya. kan markuu dhaho 50kaa siina inuu dhaho war ka soo tag anaa 40kaa siinaye. ayadana markaa mamnuuc waaye. walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu ahaada cibaadallaahi addoomadii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda almuslimu akhulmuslim. waayo muslimka kale waa walaalkiis, laa yadlimuhu ma dulmiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. dulmiga wuu ka ilaaliyaa. dulmiga waan soo marnay, waa shay mamnuuca oo marka aan la ogolayn. ma dulmiye ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. walaalkiis waaye muslimka kale ma dulminayo oo dulmiga ayuu ka ilaaliyaa. waa shay uusan mutaysanin ciqaabkiisa iyo dembi uusan ka gelin inuu markaa ka abaalmariyo. taasaa markaa loola jeedaa. idan ma dulmiyo walaalkii muslimka ah. walaa yakhduluhu ma hoojiyo. waa amarkiisa agtiisa macruuf iyo wixii mataqaanaa munkar iyo waxaasoo dhan iyo waxa uu ka dalbado oo xuquuqaad ah, ama nasrigiisa iyo inuu u kaalmeeyo kama dego, amase kama taga mar allaala markuu u baahan yahay inuu markaa dhagro inuu mataqaana u nasriyo. walaa yakdulu waxaa dhici karta cadow uma dhiibo, ma hoojinayo oo intuu god khiyaano u qodo markaa ma koridayo qofka muslimka ah. walaa yaxqiruhu macnaha walaa yakdibuhu mana beeniyo. hadalka uu u sheega beentiis waaye ma dhow ama asaga laftigiisa uma been sheego. walaa yaxqiruhu mana xaqiro. taxqiirka waxaa loola jeedaa inuu liido ama uu yaso. taasaa markaa laga wadaa. sidaa darteed ma yasaayo yaraan darteed, ma u liidayo qabiil darteed, ma u liidayo xoolo la-aan darteed. sidaasaa lagu yaqaanaa walaa yaxqiruhu. mana xaqirayo oo ma liidaayo oo mid hoos u dhigaya markaa ma ahee. mar walba wuxuu u arkaa walaalkii rasmiga ee xaqa inuu markaa yahay. taxqiirka aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay. waana kibirka ku xambaara qofka. ila rasuulku wuxuu yidhi ha kibrina. qof kasta oo qalbigiisa wax yar oo kibira uu ku jira jannada ilaahay ma galo. nin baa dhahay rasuulkii allow dharkeenu waxaan jecelnahay ama xadkeen uu jecel yahay kaba fiican iyo dhar fiican inuu markaa labisto. see waaye rasuulku wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal. ilaahay waa jamiil, jamaalkana waa jecel yahay subxaana wa tacaala. laakiin waxaa loola jeedaa kibirka aan idin sheegayo waa xaqa oo laga kibro oo laga santaagoo la diido iyo dadkoo la xaqira buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. marka in dadka la xaqira ama la yaso ama la liidaa waa dhibaato. attaqwa haahuna, taqwada meeshaan waaye ayuu yidhi. taqwada xaqa ah ee dhabtee xaqiiqda waa qalbiga. saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. taqwada iyo cabsida dhabta ah ee xaqaa haahuna meeshaan waaye. wayushiiru ilaa sadrihi, laabtiisa ayuu tilmaamay nebiga 3 maraatin. bixasbi imri'in, qof waxaa ugu filan min ashari, sharna waxaa ugu filan an yaxqira, inuu xaqiro aqaahu lmuslima, walaalkii muslim ah. waxaa loola jeedaa qofka hadduu ka fogaado ama uu iska ilaaliyo shar iyo xumaan iyo dhammaan oo dhan, waxaa ku filan inuu xaqiro ama uu yaso walaalkii muslim ah. kullu lmuslimi muslim kasta cala almuslimi, muslimka kale korkiisa xaraamun, xaraam buu uga yahay damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo, wamaaluhu maalkiisa inuu dhaco ama uu qaato, iyo wa cirduhu sharafkiisa inuu markaa hoos u dhigo iyo sharafkiisa inuu markaa liido ama uu hoos u dhigo. intaasoo dhan markaa mamnuucay ka tahay. alxadiid xadiidkii 36 36 can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu can abi hurayrata radia allahu canhu can innabiyi, nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu dhahay nebiga man nafasa, qofkii ka fayda can mu'minin qof mu'min ah kurbatan kurbahaysay oo min kurabi dunyaa, adduunka kurbooyinkiisa kamida, nafasa allaahu, ilaahayaa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurba oo min kurabi yowmi alqiyaamati, maalinta qiyaamo kurbooyinkooda kamida. waman yasara,
qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof la cusleeyey oo culus korkiisa yasara allaahu ilaahayaa ka fududeeya calayhi korkiisa fi ddunyaa waalaakhira adduun iyo aakhira waman satara qofkii u astura ceeb musliman qof muslim ah ceebtiisa qariya satarahu allaahu ilaahay ayaa u qariya fi ddunyaa waalaakhirati adduun iyo aakhiraba wallaahu ilaahay fii cawni alcabdi addoonka kaalmeeyihiisa waaye maa kaana alcabdu intuu addoonku yahay fii cawni akhiihi mid walaalkiis u kaalmaynaya waman salaka qofkii qaada tariiqan jid yaltamisa fiihi uu ku raadinaya cilmi sharci ah oo diiniya sahala allaahu ilaahayaa u sahla lahu qofkaa bihi xaaladda uu sameeyey iyo jidka uu qaaday sababtiisa tariiqan jid oo ila aljannati jannada markaa gaarsiiya wamajtamac ma kulmaan qowm fii beytin guri oo min buyuuti illaahi ilaahay guryihiisa kamida kuma kulmaan yatluuna ayagoo ku akhrisanaya kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa wayatadaarasuunahu isku dhegaysanayo isku darsaya baynahum dhexdooda ilaa nasalad waxaa ku soo degta calayhim korkooda assakiinatu xasilooni waqashiyathum alraxmatu raxmadda ayaa daboosha waxafathum waxaa koobta almalaa'ikatu malaa'igta wadakarahum allaahu ilaahayna wuxuu ku xusaa fii man cindahu dadka agtiisa ahaaday waman bata'a qofkuu daahiyo uu dib u dhiga bihi asaga camaluhu camalkiisa lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu ma dadejin karo qofkuu camalkiisa dib u dhigo uu sharaf u yeeli waayo qabiilkiisa ma sharfi karo macnaha horeyna markaa ma geyn kara rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey bi haada allafdi lafdigaas ee kana ayuu ku wariyey xadiisku wuxuu u daliil yahay ama uu noo tilmaamayaa arrimooyin wanaagsan oo haddii aan samayno khayr iyo wanaag aan ku gaarayno dadka muslimiinta inaan ogaano iyo mu'miniinta kurbada laga ilaaliyo wixii lala qaban kara lala qabto qof allaala qofkii ceeb lagu arka in laga asturo qof allaala qofkii cusri iyo culays u saaxiiba in laga yasiro waxyaabo fara badan ayuu xadiidku nagu tilmaamayaa iyo in allaala inta aan walaalkeen muslima u kaalmaynayno ama aada walaalkaan muslima u kaalmaynaysa ilaahay ayaa dantaada kaaga shaqaynaya subxaana wa tacaala wuxuu xadiiskuna tilmaamayaa guryaha alle guri kamida haddii la fadhiisto qur-aan lagu akriyo axaadiid lagu akrista inay meesha malaa'igtu ka maqnaanaynin naxariista allay ka maqnaanaynin ilaahayna uu ku faantamayo subxaanahu wa tacaala qofkii qabiilkiisa dib u dhiga inuusan nasabkiisu dadejin karin abi hurayra wuxuu yidhi nebiga xaggiisa uu ka wariyey qaala inuu dhahay nebiga man nafasa qofkii ka fayda can mu'min xaggiisa kurbatan kurba haysay maxaa mu'min maanta kurba laga faydaa iska dhaaf in laga fayday asaa la kurbaynaa maanta haddii dhibkiisa xataa aad iska dhaafi lahayd oo aadan dhibi lahayn xataa waxaa meesha ka imaan lahaa in wanaag aad ka hesho meesha inan qofka haddaad wanaag u samayn weyso shartaada ka ilaali maca daalika ayaa maanta sidii loo kurbayn lahaa mu'minka kurba ay u asiibi lahayd ayaa dadaal iyo shir iyo waxyaabo kale markaa loogu jiraa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya kurba adduun haddaad ka qaada nafasa allaahu canhu ilaahay baa qafkiisa ka qaada qofkaa kurbatan kurba oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo kurbooyinkooda ka mid ah waa kurbaysnaa dhibaataa haysatay meel ayuu dhibaato ka ahaa waad ka fayday arrintii waxbaad la qabatay dadkii baad kala hadashay say noqotaba kurba haysay ayaad ka qaaday ilaahayaa kurba adduun iyo mid aakhiro kaa faydaya waman yassara qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof mucsir ah oo la cusleeyey yasara allaahu calayhi ilaahay baa mankaa dushiisa u fududeeya fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiraba dayn baad ku lahayd dayntii ayuu dhiibi waayey waad u fududayso waad ka cafisay asagoo dhan amase waad ka sugtay ilaa uu ka helaayo ribo iyo waxyaabo kale korka kama saarin hadda waxayga isii ma dhihin dagaal iyo waxyaabo kale kuma samayn ilaahayaa adduun iyo aakhira kuu fududaynaya adigana sida ilaahay tilmaamay wain kaana duu cusratin ninka daynta lagu leeyahay hadduu culays u saaxiib yahay fanadiratun ilaa maysir ninka daynta leh waa inuu u sugaa buu dhahay ilaahay ilaa makaanu sahal uu ka helaayo wa an tasadaquu khayru lakum inaad isaga cafisaanaana ka khayr badan buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala
inaad sidaa yeeshaan ayaa ka fiican. sidaa darteed waman yasara calaa mucsirin, mucsir qofkii u fududeeya yasara allaahu, ilaahay baa ka fududeeya calayhi korkiisa fi dunya waalaakhira. rasuulku xadiid kale ayuu ku yidhi, nin baa la xisaabay oo dadkii hore ka mid ah, waxaa laga waayey wanaag oo dhan, laakiin wuxuu ahaa nin xoolo qabeen ah. dadka ayuu wax u amaahin jiray, dadka daynta u soo aruuriyay ayuu dhihi jiray, haddaad aragtaan nin culusoo culays u saaxiib ahna ka fududeeya, haddaad aragtaan nin muyasir xataa ka suga oo ka suga, haddaad aragtaan nin aan dhiibi waayey oo waxyaabihii dhiibi karinna markaa ka cafiya. intaa markii laga helay ayuu ilaahay yidhi, addoonkayga aniga igama cafin badna, sidaa darteed ilaahay waa cafiyey, jannadaana la geliyey subxaana wa tacaala. marka ilaahay naxariistiisa waa weyn tahay, adduun iyo aakhira loo fududeeyaa qof walba oo walaalkii mucsira ama qof mucsir ahee culays u saaxiiba markaa ka dejiya. waman satara, qofkii u daboola ceeb musliman qof muslim ah, satarahu allahu fi dunya waalaakhira, ilaahay yaa adduun iyo aakhira u asturaya subxaanahu wa tacaala. ceebtaada adduun iyo ceebtaada aakhira in ilaahay qariya ma rabtaa, waa inaad samayso dadka muslimiinta ah ceebtooda inaad markaa qariso. maanta iska dhaaf in ceeb loo qariya, kii ceeb aan lahayna ceeb sidii loogu yeeli lahaa markaa lagu dadaalaa. xaaladda noocaasa waa shay dhibaato badan oo la ogoleen. qofka muslimka ah waa inuu u qariyo walaalkii muslimka ceebaha uu ku arko. qofku haddii ceebta uu ka dhigto ama xumaanta daa'im, waa mawduuc gooniyu bannaanka la soo baxo. ama dadka hay-aadka iyo sharafta u saaxiibka ah durunturada iyo simbirraxada ka dhacda ka cafiyuu dhihi jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed ayaa qofkan ceeb buu sameeyey maanta. qof wanaagsan oo khayr iyo wanaag lagu og yahay ayuu ahaa. xumaantii aad ku aragtay maaha inaad shaacisood bannaanka geyso, waa inaad aamustaa, waa inaad ka qarisaa. haddaad ka qarisa ilaahay baa adduun iyo aakhira kuu qarinaya. maanta waa la israacraacaa qof kastaa qofka kale ceebtiisa, dembi inuu yeesho, jaasuusnimo iyo waxyaaba noocaasay dadku ku isticmaalaan. maca daalika buu yidhi nebiga, qof allaala qofkii qof muslima ceebtiisa raacraaca oo raba inuu fadeexeeyo, ilaahay ayaa ceebeeya asaga, xataa qacriga iyo salka beydkiisa asagoo ku jiraba ha ahaatee. haddaba dadka muslimiinta waa inay isku ceeb qariyaan. wallaahu fii cawni alcabdi, ilaahay addoonkuu u kaalmeeyaa maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi. addoonku intuu yahay mid walaalkiis u kaalmaynaya. waman salaka dariiqan, qofkii jid mara oo yaltamisu fiihi cilman, cilmi uu ku raadinayo, sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna, ilaahay baa u sahla wadadii jannada uu ku gaari lahaa. ilan cilmiga sharciga ee diiniga uu baranayo oo mar kasta jidka u qaadayo ayuu ku dhaqmaa, waa ku camalfalaa, jidkii jannada ayuu markaa gaarsiina. taa waa dhici kartaa in loola jeedo, ama jidkii jannada wuxuu ku gaari lahaa ayuu markaa ilaahay u fududaynayaa. wamajtamaca qowm, oo ma kulmaan fii beytin guri oo min buyuuti illaahi, guryaha ilaahay kamida, yatluuna ayagoo akhrisanaya kitaab allaahi, ilaahay kitaabkiisa, wayatadaarasuunahu isku dhegaysanayo, isku meerinaya baynahum dhexdooda, ilaa nasalad calayhim, waxaa kusoo degaysa assakiinatu, xasilooni. waa midda koobaad. sakiinaa kusoo degta meelaha wacdiga iyo qur-aanka lagu akriyo. meelaha kilaabkaa fiiri, dad isdila iyo dad dhagax isku qaatay, dad qamriga markuu ka bato isdilaayay iyaad arkaysaa, waa buuq. meelaha lagu ciyaaro saasoo kale. amaa fiiri meelaha diinta alla lagu aqrinaayo, dadkoo dhan way wada khushuucsan yihiin. calayhim assakiina, ilaahay baa xasinoonida ugu talagalay subxaana wa tacaala. wax buuqa ma ku arkaysid, wax qaylaa ma ku arkaysid, wax kale ma ku arkaysid, rikoor laguma agdaaro, heese ma lagu agdaaro. amaa guryaha kale fisqiya shayaadiinta fiiri iyo sida ay markaa yihiin, iyo dagaalkii buuqa markaa ka dhaceeya. meelaha qamriga lagu cabo, meelaha khamaarka lagu ciyaaro, waa midda koowaad. sakiina kusoo degta. midda labaad, waqashiyadhum araxmatu, naxariisaa daboolaysa, ayagoo dhanba raxmada ilaahay ayaa daboolaysa. midda saddexaad, waxafathum almalaa'ikatu, malaa'igtaa koobaysa. weliba nebigu wuxuu tilmaamay 2 qofood kasta inta u dhacaysa inay malaa'ig ku jirto. wadakarahum allahu, ilaahayna wuxuu ku xusaa fii man cinda, waa 4 jawaa-isoo ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala dadka cilmiga iyo diinka markaa baranaya. waman bataa bihi camaluhu, qofkuu camalkiisu daahiyuu dib u dhigo, lam yusric bihi nasabuhu. hadalkan wuxuu ku yimid abu sufyaan oo ah ra-iiskii ama kaaba qabiilkii qoreysheed ayaa meesha soo maray maalin. waxaa meesha fadhiyeen bilaal iyo suhayb iyo salmaan, waa dadkii islaamka ugu horreeyey haddana dacafada ahaa.
abubakar asagoo raba inuu soo dumo ninka la yidhahdo abu sufyaan maya nimankii bilaal ayaa waxay dhaheen seefaha ilaahay xaqooda ma fulinin haddiiba cadowgii ilaahay inta maraayo abu sufyaan ay haystaan abaa sufyaan waa fahmi karnaa dhibkuu islaamka gaadsiiyey beder ma ahee dagaalada kale oo dhan abaaduulow ka ahaa sidaa darteed ayay dhaheen haddiiba abu sufyaan uu meeshaan maraayo seefaha ilaahay xaqoodii ma oofsanin ma gudanin bilaal iyo salmaan iyo suhaybaa saas dhaheen abubakaraa yidhi ma sayidkii qoreyshaa saas dhehaysiin wuxuu ula jeedaa ninka lagu magacaabo abu sufyaan wuxuu rabaa inuu soo dumo abubakar waa orday nebiguu u sheegay markaasuu yidhi salmaan iyo suhayb iyo maanta ninkii odayga ah bay saas dhaheen rasuulku abubakar wuxuu ku dhaha abubakarow amay kuu xanaaqeen salmaan iyo bilaal iyo suhayb ma ogi buu dhahay wuu soo orday waa u yimid walaalayaaloo ma ii xanaaqdeen maya ayay dheen ilaahay ha kuu naxariistee rasuulku wuxuu yidhi haddaad ka xanaajin lahayd dadka adoo ilaahay ka xanaajiyay lamid tahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay abaa sufyaan muxuu yahay sanadii 8 ayaa seef iyo dib iyo cabsi uu kusoo islaamay ama raggan waa raggii diinta usoo halgamay oo ilaahay dartii loo dhibay oo ilaahay dartii mashaakilka loo gaarsiiyey sidaa darteed haddaad ka xanaajin lahayd wiilashaan waxay la mid tahay adoo alle ka xanaajiyey waman baطaa bihi camaluhu qofkuu camalkiisa dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu ma dedejiyo abu sufyaan qorayshtuuraba ha ka dhasho haddii camal fiican uu la imaan waayo qabiil fiicanuu ahaa ee horay ha la geeye ma jiro bilaal dadkii hore soo islaamuu ahaa ilaahay dartiisaa loo dhibay suhayb uruum saasoo kale salmaan alfarisi saasoo kale maca daalika abaa sufyaan wuxuu yahay markaa ma laha waayo qoraysh meesha ugu fiican ha ka dhasho hadduuba camalkiisa dib u dhigay nasabkiisu ma dedejin karo abubakarow xaaladda noocaasi markaa ogow marka qofka wuxuu isku halaynaya ha ahaato ilaahay taacadiisa iyo khayrkii wanaagga uu sameey